kusoo dhawaada Som TV Somali fadlan taageeradiina waxay noo tahay dhiirigelin subscribe saar kanaalka share garay like saar videoga mahadsani kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada halkan aynu ku wada xiriirnay waxaad naga daawanaysaan Som TV Somali xafiiskiisa Muqdisho kusoo dhawaada warka madaxdiisa wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka ee Soomaaliya oo geeri degdeg ah ku timid 8 sano gurada ka soo wareegatay xilligii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliya oo munaasabadaasi lagu qabtay Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay munaasabadaasi ciidanka booliska ee Soomaaliya u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan Allah u raxmada dalka Djibouti waxa ku geeriyootay Khadiija Maxamed Diiriye oo muddo dheer ka mid ah baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka sidoo kalena xukuumadii kala duwan ee dalka soo maray Khadiija Maxamed Diiriye ayaa dalka Djibouti u aaday ka qaybgalka shir hay'adda Heritage halkaasi ay ku qabanayso iyadoo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre wafdigu hogaaminayay ay ka mid ahayd Khadiija Maxamed Diiriye ayaa xanuun degdeg ah ku soo booday iyadoo maalmihii ina dhaafayba ay ku xanuunsaneed dhakhtar ku yaala dalka Djibouti madaxda sare ee dawladda federaalka ayaa ka tacsiyadeeyay geerida ku timid wasiir Khadiija Maxamed Diiriye ayaa laga soo bilaabay xilligii carta ilaa iyo hadda 2023 ka mid ahayd xukuumadii kala duwan ee dalka soo maray sidoo kale baarlamaankii kala duwan ee dalka soo maray Allah u raxmaday Khadiija Maxamed Diiriye ayaa ahayd hooyo Soomaaliyeed oo caruur fara badan la siiyay iyadoo dunida caruur fara badan oo iskugu jira hable iyo wiilalba kaga tagtay geeridaas degdeg ah ku timid Khadiija Maxamed Diiriye ayaa guud ahaan laga tacsiyadeeyay baraha bulshada ee Soomaalida ay ku wada xiriiraan 8 sano gurada ka soo wareegatay xilligii la aasaasay ciidanka booliska ee Soomaaliya ayaa maanta munaasabadooda lagu qabtay magaalada Muqdisho madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud safiirada caalamka ka jooga Soomaaliya iyo ciidamada ajnabiga ee jooga Soomaaliya saraakiishooda ayaa ka qayb galay munaasabadaas khudbad dheer oo halkaasi uu ka jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu ugu hambalyeeyay ciidanka booliska ee Soomaaliya oo ah hooyada ciidanka dalka muddada dheer ee ay jirsadeen 8 sano ee ka soo wareegatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale wuxuu xusay in dalka uu ku jiro dagaal kuna saabsan sidii looga saari lahaa dalka dawladda federaalka ciwaanka ay u samaysay kooxda shabaab ee khawaarijta ay dawladda ugu yeerto booliska ee Soomaaliya ayaa wuxuu faray in kaalintooda looga baahan yahay booliska sidii khawaarijta sida dawladda ay ku tilmaamto dalka looga saari lahaa taliyaha ciidanka booliska ee Soomaaliya Philip oo asaguna halkaasi khudbad ka jeediyay ayaa asaguna wuxuu ka hadlay qiimaha iyo tayada ciidanka Jamhuuriyadda Federaalka ee booliska iyo sida hadda loo horumarinayo General Philip ayaa wuxuu sheegay in ay ku tala jiraan sidii ay u horumarin lahaayeen ciidanka booliska Soomaaliya ee 8 sano ka soo wareegatay xilligii la aasaasay sanad walba markii la gaaro 20 December ayaa la xusaa xilligii la aasaasay ciidanka booliska ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lafahantiisu wuxuu sheegay in ciidanka boolisku kaalin fircoon ay ka soo ciyaareen nabadeynta dalka iyo la shaqaynta bulshada haddana ay doonayaan kobcinta iyo kordhinta iyo tirada ciidanka booliska ee Soomaaliya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadaba waa ku mahadsantihiin daawashada tabatayada lamid ay taanu ku wada kulmayno amaana Allah